maamuuskuna waa in loo sabafalo wax alliyaaliyo wixii wanaagiyo sabafal aad u fulin kartana aad u fuliso maxaa kamida waxa kamida inaad markuu baahan yahay had muqaasaad ku sabayso wixii aad hayso aad wadaajiso imaam axmed baa wuxuu ka warinaya cumar ibn khadaab inuu yidhi laa yashbacu almu'minu duuna jaarihi qofku hadduu mu'min dhaba yahay ma dhergo isagoo jaarkiisu gaajaysan yahay bimacnaa waa inaanu keligii u dhergina jaarkiisa wax la qabaa waxa kale oo xadiid xaakim warinayo cumar laga warinayo nabigu yiri ma aamana bi mabata shacbana wajaaruhu ila jambi jaa'i wa huwa ya'lam ima rumaynin oo nabi maxamed muu rumaynin qof gabariyay waa bariistay isaga oo dheragsan jaarkii dhinaciisuna uu gaajisan yahay laakiin og macnaa waxaad og tahay jaarkan kugu xiga reerahan kuu dhow reeraan dab waxba loo saarin oon qadaynin oon nocaashaynin oon quracanin baad og tahay adigana saddexdii waqtiba waad dheragtay sidaasaa waagi idinku bariyey nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu idhi kaasi aniga ima rumaynin nabi maxamed muu rumaynin been ayuu iimaanka ka sheegayaa way iimaankiisa ayaa faraya inuu qofka walaalkii jaarkayna baahan inuu isaguna wax siiyo oonu keligii wax iska cunin laakiin waa inuu ogyahay baanu idhi ogaantana dee kollay in la isxaal ogaadaa waa mid jaarka u habboon xadiid kale abudar laga warinayo saxiixu muslim ku soo arooray wuxuu yidhi awsaanii khaliilii wuxuu ii dardaarmay saaxiibkaygii nebi muxamed wuxuu yidhi idaa طabaqta maraqan fakir maa'ahu uma andur ilaa ahli jiraani ilaa beyti jiraanik faasibu minha bimacruuf haddaad kariso shay maraq leh hilib iyo wixii lamida haddaad kariso had iyo gooraale siniintiisa iyo urtiisuna way gudubtaay oo way gaadhaa biyahaysa badi baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi dabeetana jiiraankaaga iyo eheladooda iyo guryahooda eg wax ka gaadhsii buuri haddaad hilib iyo wax kala gaadhsii weydo koob maraqa u dar baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi markaad shay hilib la kariso maxaa ka mida waxyaalaha samafalka jaarka inaad u gargaarto nafci iyo waxtar waxaad u hidin karto inaad u hidiso walow xaq aad leedahay oo aad uga tanaasusho oo ka tanaasulkaad ka tanaasushaana waxba adiga aanu ku yeelaynba ha ahaadeen maxaa ka mida nabigu wuxuu uhi laa yamnacanna axadukum jaarwan yakrisa khashabatan fii jidaari guri baa kuu dhisan gidaaraad leedahay dee reerka kugu xigaa hadday gurigoodii dhisanayaan awoodna aanay u lahayn inay gidaarkaaga wax kugu celiyaan waxayna kaa siiyaan xuquuqda ay kugu leeyihin waxaa ka mid inaad gidaarkaa u saamaxday inay iyagu kugu qabsadaan weliba arrin asxaabta dhexdeeda ku yar adkaaday oo uu lahaa saxaabigaasi أبا هريرة ولها ورمحا سنه النبي وجهستين والله لا أرمينا بها بين أكتافكم والله أنا جوان ذي كسر احتوري بول صدون تنا كي يشانه رسولها نبي جوع يريان وشار كي سودين إنه كوكب صدو إن لك ريب صدق الله كرجتانا ومدفرا حدي يسقو أود لا يسامحه وهو كفران أجر كيليسو حدي أنا أود بقولها هينا يعني حتى علماء قاربة قبطة ممنوع إن يتينا دو ديدا وين كوكو قبصلا وين واحد ذيك وحي الله وكو كيري يمشلو ورقمو يعني وحكى الله كم مذا وحيالها جارك الله قصب فلو إن هدو هذي يسو سيبا مناسباتك إن مركا مناسبات جيران إن دوحي هذي يدو جين كرتا هدو جيسو مناسبة واحد جرا مثلا وحلقة شات جرا عد باكو سودكتي عد باكو تمي مناسبات كأي حفلة ده هلا جاي أبى حلية اللي جسوا يجيو إن هذا وحسيسه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حديث عائشة أي كورين يسو لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاط النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يا ريسا قبل جاري قبل كلا جار كذا وحيسين يسو ولو فرس نشاط النبي صلى الله عليه وسلم قوب يعني نيف أريبها هذا يعني
qoobku ama adinka inta yar hoose karaacinka laga dhiga aad bay u nafci daran tahay wixii libo leedahay ma jiro waxooga yar yar oo seedaahaya inta marq yar laga baxa mooyaan haddaad wax kale u hidin kari weydo inaad inta u hidiso oo aad siiso ayaa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam ina faraya waxaad u malayn markaa wax ka weyn haddaad u hidin karayso ayaduna waa mid ma'muur ah ayaduna layna faray weeyo marka walaalayaal xaqqa jaarku يعني أسمى فالكيس والله بذا قيبض إن أدوحي دبا أتكهيسطو إن أدوحي سمى فالإيا وناك أدوحي سمى فالي كرتانا إن أدوحي ديسو وحكم مذا إن أد شاركاغا سلام وناكسن وجه وناكسن هذا الوناكسن إن أدكو قابشو إن أد هدو حنون صدو أدبوقتو in haddii geeri ay ku timaado inaad tacsiyadayso in aad la wadaagto farax iyo naxdin labadaba weynad la wadaagtaa hadduu jaarkaagu faraxsan yahay waa inaad la faraxdaa hadduu jaarkaagu musiibaysay musiibada waa inaad kala qaataad la murugootaa laakiin haddii aad markuu faraxsan yahay aad murugooto marka uu dhibaataysan yahay aad ku faraxdo yaani waxay noqonaysaa cadaawada ugu xun ama heerka ugu xun ay noqonaysaa marka waa inaad wixii musiiba iyo wixii faraxaba weynaad la wadaagtaa waa inaanad yaani awraadkiisa ana taalacanin waa inaanad wixii gurigiisa ceeba ka jira waa inaanad faafinin waa inaanad dadka kale u gudbinin waa inaanad biyaha iyo qashinka guriyahooda hortooda aanad ku shubin waa inaanad wadadooda ku ciriiriyin waa inaanad ubadkooda aad soo dhawaysaa oo ubadkooda iyo wixii ay wataan ka soo jeeda inaad ku faraxdo oo aanad dhibsanin bimacnaa haddaynu si kale u dhigno يعني أما بقى إنه صور إنه معناه وحين لنا هاي وإن شاركاج وح اللي يليه وحي أدوه دين كرتو وانا أدوه ديسان وإن شاركاج وحي نبعت كهيستا وإن هداي بكاجت ما ضو إلا إن لو وذا توصنان ما يه أو ضدك وذا توصنان ما يانه وحي نبع إليهن وإن أتكدل قادتا واحد شري قصة أيها جرتي من أيها شاركيس الدبا آد بو الدبا خير بالا دبا خيركي أيها واحد اللي قلت لي إني ألابتو ذا صادق تان دبده أو ماشي ويسكي يعان ألابتي بي دبدنا دبده صادق تان دادكي ودده مريا بالي محايد كل عاي waxay yiraahdeen jaarkii baan dhibay oo dawaan ku jiri kar weyn waan ka baxayna Allah lacnado bayla kaydin dhibay Allah lacnado ki soo maraaba way iska dhaafaan hadana qaar kala soo maray markii ay wixii maqreen iyo uquba inay ku dhacayso ayay intay ku soo yaaceen bay galkiga gonda qabteen waxay dib dambaysa idin dhibi maynee soo gala wala leel gurigiiniyo dib dambaysa dhibin oo keenin mayse bimaana yaani halkaasi waxa weeye waxay tusinaysaa in loo baahan yahay jaarku haduu ku dhibo inaad adigu la dhib ka horgeynin حلو بهاي والله waxay noognay baanta jaararkeena runtii dhibo fara badan baa ka jira xagga ihsaanka iyo xagga saafalku waa ku yar yahay qaarna waxa laga yaabaa nolosha ugu sareysay inay ku nool yihiin oo nus saacadoodii waxa yaray cunayaan iyo waxay daga samaysanayaan inay yaani de ay fooq غير العادي tahay laga yaabo kuwa saddexda miil ku xigaana inaan helin oray hadana iska warhaynin taa waxa weeyaan walaalayaal waa in jaarku isxaal ogaada oo la isu sawafaraa waxaynu ognahay jaararka maanta dhibtiga saldhigyada magaalada Hargeysa maanta ku yaala waxa ugu badan ay qabtaan ama dacwadaha ugu badan ama hawsha badan ay ku jiraan waa reeray islaynayo jaar islaynayo ayun bay ku dhex jiraan ama saldhig walba hadaad soo marto jaar islaayo oo la soo duubay oo la wada xidhay ayaa ku jira waxyaalaha ugu badan ay isugu yimaadaan